mudane wasiir waxaan ku weydiinayaa arrintii gobolka Banaadir ka dhacday musiibadii aadka u dhibka badnayd uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo duqi magaalada 3 gudoomiye degmo iyo 9 agaasime qaraxa dhacayna uu ahaa mid aan yani miino loo dhigayna ahayn guri la soo jabiyana aan ahayn oo xafiiska ka dhacay dhacdadaas waxay ku dhamaatay sidii dhacdooyinka hore kaleeto Allah u naxariisto gudoomiye gobol la magacaabo xagee ku dambeysay arrintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xildhibaan ahaan inaan ogaano arrintaas meesha ay ku dambeysay waxyaabo kaleeto la qarinaayana inaysan dhici doonin sida hadda qaasan kuula wadaaga ay dhacayso kale inaysan dhicin dadkan waa dhinteen soo ma noqonayaan kiiskaas meeshuu ka bilowdo siday ku dhaceen arrintaas aad ay muhiim noogu tahay maadaama aan hay'ad ahaan aydan u soo gudbinin ama ka wasaarad ahaan taliyaha booliiska waxaan rabaa arrin asagana ka horeysay ilaa ay haddana socoto inaan asagana su'aal ka weydiiyo oo ay ka mid tahay bajaajlayda maalin kasta bilaa micnada lagu dhammaynayo ciidankeennii booliiska Soomaaliyeed ee wadooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababayna ku dilaan waxaan rabnaa arrintaas maxaa kaaga yaalo hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa 4 bilood oo la soo dhaafay 3 ilaa 4 bajaajla la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajla ah oo yani uu la dilo ciidankii booliiska Soomaaliyeed qayb ka mid ah waxa kaloo jirto taliya xijaar waxyaabo badan oo lagu soo eedeeyay oo aan goob joogna u ahaa qaarkood oo ay ka mid ahaayeen xushmad darro iyo tixgelin la'aan xafiiskiisa lagala kulmo qaasatan mas'uuliyiinta waxa kaloo jirto taliya xijaar arrimo oo ay ka mid tahay isticmaal awood iyo ku takrifal sharciga xaqiisa uu ku takrifalayo qaasatan saraakiisha oo aan asagoon habraac iyo ciqaabeed sax u marin ama iska xiro ama uu si ay dhiida ku dacweeyay waxaan rabnaa in arrintaas nooga jawaabtid taliye waxyaabihii sababay iyo siday ku dhacday arrinta xushmad la'aantana ma dabeecaday ka tahay iyo dhaqan ma dad gaar ah oo aad ugu dal leedahay ay jirto xushmad darradaas amaansantaa